sheekadaas xiddigii yaraa ee geesiga ahaa. Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa jiray wiil yar oo magaciisa la odhan jiray Cumar. Cumar wuxuu ku noolaa tuulo yar oo ku taal Soomaaliya, tuuladaas oo dadka ku nool ay caanka ku ahaayeen dadaal iyo isku tashi. Laakiin Cumar mar kasta wuxuu islahaa, anigu ma awoodo inaan wax weyn sameeyo sida waalidiintayda ama dadka waaweyn ee tuulada. Maalin maalmaha ka mid ah, aabbaha Cumar oo ahaa kalluumaysade weyn ayaa u yeeray oo ku yidhi, Cumarow, maanta waxaan doonayaa inaad i caawiso oo aad ila kalluumaysato. Waa inaad barato sida loo noqdo qof is-hortaagan oo dhiiran. Markii hore Cumar wuu ka cabsaday, badda way weynayd, hirarkeeda ayaa sare u kacayay, waana markii ugu horraysay ee uu doon raaco. Laakiin aabbihiis ayaa ku dhiirigeliyey, wiilkaygiiyow, geesinimada ma aha inaad ka baqdo cabsi la'aan, waa inaad ku dhiirato inaad wajahdo cabsidaada. Cumar wuu isku kalsoonaan waayey, laakiin ugu dambayn wuxuu go'aansaday inuu isku dayo. Markii ay badweynta galeen, wuxuu arkay hirar waaweyn oo mararka qaar doonida ku soo dhaca. Wuxuu damcay inuu ka boodo doonida oo uu dib uga soo laabto, laakiin aabbihiis ayaa ku yidhi, wiilkaygiiyow, haddii aad mar walba ka baqdo caqabadaha, weligaa ma noqon kartid geesi. Waan kula joogaa oo waan ku caawinayaa. Cumar wuxuu bilaabay inuu gacmihiisa ku shubo shabaqa, wuxuuna markiiba dareemay culays weyn. Wuxuu arkay in uu shabaqa soo jiidayo si uu u arko kalluun weyn oo soo galay shabaqii. Farxad ayaa wejigiisa ka muuqatay, wuxuuna yidhi, Aabe, waan awoodaa inaan tan sameeyo. Markii ay dib ugu soo laabteen tuulada, Cumar wuxuu arkay inay dadka tuulada ay ku faraxsan yihiin waxqabadkiisa. Waxaa loogu yeeray xiddiga yar ee geesiga ah, waxaana loo sheegay in haddii uu ku dhiirado inuu isku dayo, uu noqon karo qof wax weyn ku soo kordhiya bulshada. Iyo maalintaas, Cumar wuxuu bartay in awoodda dhabta ah aysan ku jirin xoogga jidhka, balse ay ku jirto isku kalsoonaanta iyo ku dhiirashada inaad isku daydo waxyaabaha aad ka baqayso. Guntii iyo gabagabadii, carruurta Soomaaliyeedow, sheekadan waxay idin baraysaa in geesinimadu aysan macnaheedu ahayn inaad cabsida ka dhammaatay, balse ay tahay inaad wajahdo oo aad ku dhaafto cabsi kasta hortaagan riyadaada. Isku day inaad wax cusub barato oo weligaa ha ka cabsan inaad ku guuldarraysato, waayo guusha dhabta waxay timaadaa markaad si joogto ah u dadaasho.